بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقوا علي حرسي وكم مقعدين علي كبيري كورنتي وناكسان مركلة ومدى الصومالية ميول بقى جوكتو وحنكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحندي رجينا يا عافماد وناكسان إمبري دري عبادة صوبان إنو إلهي سبحانه وتعالى وإذنكو واريو وهاقاق ما أنت تاريخ وطبانك بشا لحاد 2021 waxaan halkan rabaa inaan ku falanqeyno shirki jaraa'id uu qabtay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya ee uu ku beeninayay warbixintii iyo reportkii ay qoreen United Nationska iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ee Amnesty International ee ay ku cadeeyeen in dhalinyaro Soomaaliyeed oo askar tababar loo geeyay dalka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii Tigreega gobolka Tigreeniya ka dhacay ee u dhaxeeyay ciidamada militariga dawladda Itoobiya iyo ciidamada militariga dawladda Eritrea oo iskaashanaya halkaas oo lagu soo arkay in ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay taas oo ay dawladdu si cad u beenisay iyo maxaa la yiraahdaa arrimaha ku saabsan ayaanu hadda ku falanqeynaynaa halkan ayadoo maanta ay ka dhaceen mudaharaadyo ay dhigeen waalidiintii ay ilmahoodu ka maqnaayeen muddada 3 sano ku sii dhow ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay wasiirka warfaafinta oo aan dhihi karo ama aan ugu yeeri karo dubbe damiir laawe oo hooyooyinkii oynahayay ee qaarkood ay ku hor suxeen madaxtooyada horteeda ku jeesjeesay kana dhigay arrintoodii arrin ay siyaasiyiin dabada ka riixayaan oo ay campaign ka dhiganayaan haddaba su'aashu waxay tahay war dubbow islaamahan iyo hooyooyinkan masaakiinta ah ee oynahaya iyo aabayaashani ma siyaasiyiin xildoona oo musharaxiin ah maxaa dadka masaakiinta oo hooyooyinka oo beerkoodii ilmahoodu maqan yihiin ugu diganaysaa taasi waxay ku cadaynaysaa halkaas ka cadaynaysaa inaadan wax damiir lahayn inaad tahay qof qalbigu ka madow yahay oo aan damiir lahayn waxa kaloo cadaynaysaa inay waxa aad sheegaysiin ee aad horay u sheegteen ay yihiin wax beena oo aan waxba ka jirin oo aad ku marmarsiyooteen arrintiina aad u bedesheen dowladda Kenya iyo duqeyntii ay ka geysatay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo taas oo ay ku dhinteen qoys Soomaaliyeed oo aan cambaaraynayno aad iyo aadna aan uga xunahay xadgudubyada ay Kenya sameynayso ay ka wado gobolada Jubbooyinka iyo Gedo iyo xuduudka Soomaaliya iyo gudaha dhulka ay xooga ku haysato ee gobolada Mandheera iyo Gaarisa ama North Eastern la isku yiraahdo Soomaaliya ama NFD weligan baa cambaarayn jirnay horaan u cambaarayn jirnay farmaaga joogin baa cambaarayn jirnay la dagaalami jirnay mudaharaadyo ka sameyn jirnay meel walba ku cambaarayn jirnay marka maanta in dadkii Soomaaliyeed ee Muqdisho isku soo baxay ee tiradoodu intaas la ekeyd ee rabay in ilmahoodii loo cadeeyo oo mas'uuliyiintu inta soo baxaan ay la hadlaan oo hooyooyinkaas ay qalbiga u qaboojiyaan oo ay u sheegaan ilmahoodu meesha ay jiraan ama ay yiraahdaan u ballan qaadan inay u keenayaan inay maanta inta wasiirka warfaafinta loo soo diro ninaan damiir iyo dadnimo iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo midna aan lahayn uu ku hor jeeso oo yiraahdo tababar ayay ku maqan yihiin tababar bayna soo dhameysanayaan waana tababarkaasi weli jiraan tababarka ilmaha 2 sano iyo barka jira ee wadanka ka maqan ee 10 ku dhadhow ee qaar 11 weel leeyahay qaar 7 weel leeyahay maxay tahay maxay baranayaan ma jaamacaday ku jiraan ma kulliyadaha akademiga waxay baranayaan militariga oo xirfadlayaal ayay soo noqonayaan oo waxa weeyaan waa dad jaamacada ku jira ma ciidan intaas leeg ayaa professional noqda oo intaas oo tira ayaa hadii ilaahay ku runay ciidamo intaas leeg ayaa inta la qaadaa professional laga soo dhigaa ciidamada sida loo soo tababaro waa naqaanaa ciidamada waxa la qaadaa in yar markaas la soo tababaraa qaar hoggaanka qaar maamulka qaar technician laga soo dhigaa kuwa waxa la baraa madaafiicda kuwa waxa la baraa hadii ilaahay ku runay ishaq isgaarsiinta kuwa maamulka la soo baraa dadkaas professional ayaga ayay soo noqdaan markaas ayay ciidamada sii tababaraan laakiin ciidamo tiro badan oo dalka dibadda lagu soo tababaraya sida hadda waayahan dambe aynu arkaynay waxa weeyaan waa wax markay ugu badnaadaan sanad bay maqnaadaan 8 bilood bay maqnaadaan waa markay ugu badan yihiin oo ay ayagoo xidiglayaal ama laba xidigle ay imaanayaan Turkiga ayaa ugu badan 8 bilood bay maqnaadaan Turkiyana waxa keenaya systemkooda ayaa wuxuu yahay systemka NATO
oo askariga dibowga gala waa inuu 8 bilood ku jiraa dibowga hadduusan 8 bilood dibowga ku jirina shahaadada lama siinayo laakiin wadamadan Afrika iyo Uganda markii la geenayo 3 bilood iyo 6 bilood iyo 8 bilood iyo hal sano ayay ku soo qaadan jireen Ethiopia Eritrea sidoo kale ayay Eritrea waliba ciidamo waligeed nooga soo tababaray sidaas ayay ahaan jireen marka in maanta aad tiraahdo hooyooyin ooynaya oo barooranaya siyaasiyiin baa ku shaqaysanaya oo siyaasiyiin baa haddii Ilaahay ku roonyahay ka dhigaya campaign waxa weeyaan dadnimo xumo iyo damiir xumo iyo Soomaali xumo iyo waxay ku tahay shakhsiyadaada oo ah mid aad iyo aad u liidata mid aad iyo aad u liidata way farmaajana haddii uu qalbi naxa haduu leeyahay ama qalbi naxariis leeyahay intuu dib u soo diro sidaas ma dhehen asaga inta soo baxa hooyooyinkaas masaakiinta la hadli lahaa dhihi lahaa ilmihiina ama waalidin keenay ama halkaas jiraan ama anaga naga taqaanay dhihi lahaa laakiin waa nin qalbiga ka jiran oo qalbigiisu miriray oo qalbigiisu uusan nadiif ahayn taas ayaa ku cadaynaysa waxa weeyaan aad iyo aad ayaa waxmay waa cambaareynayna waxaana leenahay cid kasta waxaan ugu baaqaynaa inaan laga yeelin farmaajo iyo Fahad Yaasiin inay dalka sii joogaan ay doorasho beenbeena noo qabtaan nagu maaweeliyeen ayagoo aan ilmahayagii meel ku sheegin oo keenin waa in la qabtaa waa in la xiraa waa in haddii la kuna maxkamad la soo saaraa waa in dacwad lagu furaa sharciga kama weyna hadday sharciga ka weynaadaan oo ay xoog isbidaan waa in xoog lagu soo qabtaa oo xoog loola tagaa maxaa yeelay waa dambiilayaal qaran wey waa gacan ku dhiiglayaal wey inay ilmahayagii gataan oo ay amxaare u geeyaan oo Eritrean u geeyaan oo ay dadkayga laayaan waxa weeyaan wax la aqbali kara maaha ilmahayga yararka ee ubaxyagii soo kacayay ee mustaqbalka dalkan ahaa ee kan ugu weyn uu 22 sano jiro ee aan wali curanin 11,000 oo ciyaal ilaa iyo had inta ugu yaraan 4,000 ilaa iyo waxa loo dhaxaysiinaya 7,000 8,000 9,000 qaar baa 11 gaarsiinaya wax la arkay oo la maqlay ma aha weligeed taariikhda kama dhicin dal ay ka dhacday haba yaraatee ma jirto beenlooyaal inay yihiin oo qaa'iniin yihiin oo munaafiqnimo ay isticmaalayaan bal shirka jaraa'id oo maanta uu qabtay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Rooble bal Rooblow ilaahay baan kugu dhaarshay nin waxa iska dhigaysaa dhexdhexaada nin waxa iska dhigaysaa haddii ilaahay ku reeyaa civilization oo ilbaxa oo dawladnimada wax ka yaqaan oo nabadda ka shaqeynaya oo dal system iyo dawlad ka jirta ka yimid war wasiir xagee lagu arka dhahaya dawlad kale dalkayga marka aad duqeynaysaan noo soo sheega kaliya noo soo sheega meesha rabtiin markaas duqeey war sharciga uu ku duqeynaya Kenya ay ku duqeynayso dalkeena maxay tahay amisom u soo sheega ama anaga noo soo sheega amisom ciidamo cirb bay leedahay amisom ciidamo cirb ma lahan oo ciidamo bad ma lahan oo maxaa la yiraahdaa isha ciidankoodu waa ciidan lug iyo 4 doomo oo ku ilaalisa dekada iyo maxaa la yiraahdaa doomo yar leh amisom ma lahan ciidan cirb sidee bay u duqeynaysaa dalkayga sharciga ay Kenya ku duqeynayso dalkayga yaa siiyay waxa halkaas haddii ilaahay ku ka cadaanaysa wax alla wax dadka loo sheegay Kenya cadawgeena iyo Kenya sidaan inay munaafiqad iyo been iyo huuha ay ahayd oo ay ayaga iyo Kenya isla shaqeynayeen oo ay hoos iskala shaqeynayeen oo ay kiiska badda iskala shaqeynayeen oo ay raali ka ahayeen xasuuqa ummadda Soomaaliyeed maanta ayay ka soo fakatay afka wasiirka warfaafinta Mr. Dube Damirlaaw ayay ka soo fakatay marka uu yiri markaad kaliya wax kaliya idinka xigta inaad dalkayga duqeysaan oo diyaaradihiinu ay sharci darro ku soo galaan oo dadkayga ay sharci darro ku leysaan waxa kaliya idinka xiga inaad noo soo sheegtaan oo telefoon noo dirtaan oo tiraahdaan maanta waxaynu duqeynaynaa maxaa la yiraahdaa luuq baana duqeynaynaa ogaada kaliya oo telefoonka la dhigo ruuxaas war Kenya markay waxaas maqasho maxay madaxdoodu sidee noo arkayaan sidee dawladnimada Soomaaliya u arkayaan sidee dadnimada Soomaaliya u arkayaan adduunku markuu maqlo muxuu naga fahmaya xagee lagu arkay wasiir dhahaya dawlad kale oo dalka daris la oo cadawgeena marka aad dadkayga duqeynaysaan oo sida sharci darrada ku dilaysaan war noo soo sheega kaliya daalim weeye ilaahay ka furtay oo qaa'ina oo dambiila oo haddii ilaahay ku reey afku leebla ah weeye ninka sidaas ku hadlaaya oo uu farmaajo soo dirsaday asaga iyo farmaajo iyo fahamna waa isku dambi haddii ilaahay ku roon yahay dawladdu hadday cadeyn weyso waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ee haddii ilaahay ku roon ilmahoodu ka maqan yihiin war 10,000 idinka dhimamaysa 5,000 idinka dhimamaysa 6,000 idinka dhimamaysa Fahad Yaasiin habar qadiici gurigeedu degan yahay hadday ugu badato 50 wiil baa ilaalisay
soo qabta oo maxkamadda saara wallaahi oo bilaahi oo tallaahi haddaan ficil la qaadin inaan weligiin ina ohin iyo baruur ayna ka baxayn ohin iyo baruur inayna ka baxayn soo mayna garan ya nimanka siyaasiyiinta ee xukunka raadinaya war xukun sidaan laguma helo war qofkii dadkiisa dalkaaga iyo dadkaaga u hadli waaye yaad xukumaysaa yaa ku siinaya cod yaa beri kuu helinaya marka aad haddii ilaahay kuna ka aamusaysaan oo waxaan aad suganaysaan waad ogeydeen maalintii la bilaabay baad ogeydeen oo dadka la qaadahay oo sharci darrada lagu qaadahay oo nuxnuxu soo baxay oo idaacadu sheegayeen markaasa ahayd inaad tilaabo ka qaadaan oo aad dadka aad wacyi gelisaan oo aad tiraahdaan war ilmaha qalad lagu qaadahaya war ilmaha Eritrea loo wadaa war ilmaha qadar looma wado war waa been war ilmihiina cishta war sharci kuma baxayaan war ciidanka militariga kama rejistareysna war asluubta kama rejistareysna war booliska kama rejistareysna war haddii ilaahay kuu reeyay ciidamada Soomaaliya sharci maahan waa ciidan sharci darra oo dadka lagu iibsanayo ee ilmihiina ka haddii ilaahay kuu reeyay isha ka cishta adinkuna aad haddii ilaahay kuu reeyay la xisaabtaan ayay ahaayeen kuwan maafiyada ee haddii ilaahay kuu reeyay isku soo bahaystay inay ummadan iyo dadkan iyo dalkanba duleeyaan isku soo bahaystay haddii kale weligiin sidaas aad oohin ugu jiraysaan weligiinba hore saasaa leedin haddii ilaahay kuu reeyay isha aad u qaylinaysaan hawiyow waagii maxamed siyaad barre joogaba tabtaasa inta dadkiina loo qafaalo ayaa haddii ilaahay kuu reeyay 3 bilood oo inta gaadis iyo la baro qoriga aka si loo ridaa dabka lagu shidi jiray xabad markay cararaan oo goostaan ama qaar ay siraadaan jabhada u galana horena cadowgu markuu ka jiro gadaal baa koofi guud inta laga dhigaa dhijir ninkii soo jeesta halkaas xabad uga dhufta waa ogtiin dadkii waa la yaqaanaa xeriyihii lagu tababari jiray ceelbuur xerada ka furnayd ee tababarka ciidamada raggii tababari jiray waa joogaan timu weynaa ka mid a Faarax Kaarshe oo hadda joogo maxaa la yiraahdaa galmudug jooga waxa ka mid ah ninkii la dhihi jiray Faanda oo dhinta Allah u naxariistay Faanda ayaa ka mid ah oo ina adeerkiisa ayaa ka mid ah ya oo minna jaamac Kaarshe midna waa Faarax Kaarshe Soomina garan kuwii dadka markay cararaan oo nimanku ay fakadaan toogan jiray oo halka dhabarka ka toogan jiray baa halkan Sweden la joogo oo xiriyahaas ka shaqeyn jiray Soomaaliya garan markii laga soo qabtay maxaa la yiraahdaa ishag ceelbuur iyo maxaa la yiraahdaa ishag iyo cadaadiyo dhuusamareeb iyo gaalkacay laga qabtay halkaas la isku geyn jiray haddana sidii bay noqotay ilmihiina inta la qaado dab lagu shiday ayay noqotay dulligaas iyo dhibkaas dadkii idinka kiciyey maalintii idinka kiciyey baad haddii ilaahay kuu roon yahay waxaad tiraahdeen balaayaha mahaas naga soo gashay ya timir siiba tiitiin amuur ayaa tirahdeen timirtii aawo tiitiinkii aad abuurteen wiilashii haddii ilaahay kuu roon yahay kasoo bilaabay bardagool xabadda kasoo bilaabay ee ilaa iyo maxaa la yiraahdaa keenay ee meesha la yiraahdo madaxtooyada keenay ee indhaha gaduudnaa sida xabadda u ridaayeen baaruudda u ekaaday amaalgudkii aad u amaalgudeen iyo dembigii aad ka gasheen iyo haddii ilaahay kuu roon yahay ii sheeg meydkooda ilaa 5 kilomitir ceel waaq iyo buulax caawo iyo inta u dhaxaysa dhulka Soomaaliya ilaa iyo koonfurta Soomaaliya meel walba yaala dembiga aad ka gasheen iyo dhexdiina dembiga aad ka gasheen hawiyow iyo xuquuqdada aad isku qaadeen iyo xumaanta aad isku qaadeen iyo maxaa la yiraahdaa cadowga aad isku noqoteen iyo midkii aad dhexdiina ka gasheen ayaa inta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nafsiga qof ka soo dhigay oo farmaajo loogu soo yaraa adinka dusha layn ka saaray dusha ayaa layn ka saaray farmaajo waa dembigii aad dhexdiina ka gasheen oo qof weey oo bini aadan u eg weey laakiin aan bini aadan ahayn oo qalbi madow oo haddii Ilaahay ku reeyo xumaanta iyo dhibka iyo dilka iyo waxaan ahayn aan u imaan halkan dalkan inuu hagaajiyo oo dawladnimo Soomaaliyeed ka hagaajiyo oo dadnimo maxaa la yiraahdaa qaran Soomaaliyeed ka dhiso aan u imaan u yimid aarsi iyo nacayb iyo qabyaalad iyo xiqdi u yimid weey maxaa yeelay nin dhanoo madaxweynaha 3 sano war nala hadal war ilmaha iyaga xagee geys war waxaan waa bini aadan ma ahan haddii Ilaahay ku reeyo lacag qaadato ma ahan war ma ahan xoolo aad dhacdo ma ahan war ma ahan shay iyo shaati aad iga furato ma walaqad karamna bini aadan war waa dad nool waa dhalinyaro aan wali curan war waa ilmo yar war waa rag war waa gabdho war dadka ay xagee geys gafuur ku xirto shib wax idin la hadlayo male maxaa yeelay siyaasi ma lihidin oo sarkaal ma lihidin oo aqoonyahan ma lihidin
oo dadkiina ma dhegaysataan oo kuwa waxay idiin sheegaya dadka ugu necabtiin oo kan runta idiin sheegaya ugu necabtiin hawiye leed war hawiye asagaa u baahan dib u heshiisiin asagaa u baahan inay xaqiiqda iyo waaqaca iyo wixii dhacay laga wada hadla ayaa u baahan soo mayna garan dadkii hawiye majax qabtay oo hawiye karaamada ka qaaday oo hawiye lugaha qabtay oo halgankiisi baabi'iyey waa dalacsiseen waana idiin xildhibaano waana idiin saratarji waana idiin daraji waana xustaan agtiina lagama hadli karo lama dhihi karo ninkaasaa sidaas ahaa habaad ku soo leedahay aryaa qabiil ka hadlaya ayaa leedahay haddana maanta hawiyaa leedahay bal mid ugu dambaysa maanta taagan fiiri imise musharax oo hawiyaha taagan wax xiriir ay leeyihiin ma jiraan wax sharci oo qoran ma jiraan wax midnimo ay leeyihiin ma jirtaan axmed madoobe iyo dani baa intay idin arkeen oo idin kasbeeyeen oo idin fiirfiiriyeen oo sidaad u fakaraysiin iyo sidaad u hadlaysiin iyo hamigiina iyo dadnimadiina waxa ay tahay ayay intay arkeen waxay yidhahan war waxaane haddii ilaahay kuu ron yahay farmaajo hadduu aqli lahaan lahaa oo nin fakaraya ahaan lahaa oo nin xiqdigiisa iyo nacaybkiisa qarsanahay uu ahaan lahaa 100 sano xukun baa dhihi lahay laakiin waa doqon annagiibuu naga bilaabay war waxaan iska xukun warkii kula hadla oo isleeda xogaa waqaaqaylinaya 5,000 oo canshuur hooyadiis uga soo qaaday iyo eedadiis iyo adeerkiis iyo abaryartiis iyo awowgiis si ku laaluush lacagtiisa ku laaluush wixiisa cunsi laakiin farmaajo doqon buu noqday marna Puntland ku boodo marna Galmudug ku boodo marna haddii la ku Hirshabelle ku boodo marna Bay Bakool ku boodo marna wuxuu ku boodo Jubbaland asagii ba harsan waayay waayo wuxuu wax lama filaana ayuu helay wax uu filaneyn buu helay wax uu 50 sano oo soo socda ku fakareen buu helay ya wax uu 50 sano ku factay kursigii adeerka Maxamed Siyaad Barre laga kiciyaa ku fariisanaysa maskaxdiisa kuma sii jirin tijaabo ayay iska ahayd iyo inuu maaragtay maxaa la yiraahdaa hadii ay ku reey magac iyo ku helo iyo CV-giisa ku qorto madaxweynaha isku sharxiyay prime minister baa noqday lama filaan ayay ku noqotay ya lama filaan ayay ku noqotay markaad tiraahdo no more afgan markaad tiraahdo hadii ay ku reey abargidin waa hadii ay ku reey waa shaydaan markaad tirahdeen mursada waa dhurwa markaad tirahdeen xawaadle waa burcad markaad adinku iskala qaaqaadeen oo ninba meel oo ninka kale ku xiray oo midba mid u gudbi waay oo aad hadii ilaahay ku rooyay xamar waqooyi iyo koonfur u kala dhigateen ayaa layna arka waxaa tiin maantana deni waa musharax sida aad ku socotaan hadiinaan waxay ka bedelina waxaan idin tusahayaa in deni iyo farmaajo ay finalka doorashada iskugu saaraan oo aad labadooda kala doorataan oo inta midba midka kale hoos ka galo yiraahdo ariyaa ma sii haysaa prime minister ma sii ariyaa wasiir ma sii ambassador ma sii inta soo codaan wata xa igu bedele adinkoo dhahaya in arkay maxaa yeelay waxaan ku ogaanay tii Xasan Sheikh baan ku ogaanay tii Shariif baan ku ogaanay 190 dhowr cod adinkoo haysta ayaa 70 dhowr cod soo haysta farmaajo ayaad ugu wada shubteen maxaa Xasan Sheikh soo urahay Xasan Sheikh maxaa ka soo urahay nin walba dhigta wax lagu sheegay wasiir baan ku siinayaa ambassador baan ka dhigaya prime minister baan ka dhigaya kaala wax igu soo dir kaala wax sii kaala cod igu soo dir kaala igu dir markaas aad Xasan Sheikh ka wada shubteen ya weligay farmaajo ma taageerin doorashadii aniga Xasan Sheikh baan taageersanaa Soomaaliya haddana asagaan taageersanahay laakiin qaabka aad ku socotiin waxba kuma helaysaan sida aad ku socotaan waxba kuma helaysaan dadkiinana waa la gatay maamuladiina waa la haystaa adinka ma midaysniin ilmihiina waa la dhoofiyey dulli iyo gunimadii aad ku jirteen hore mid ka xun oo ka laba jibaarsan oo ka casirsan oo ka reer magaalsan oo ka sii daran baad dib u gelaysaa Soomaaliya fahmin waayo dadku quantity waxa ma tarto tiro waxba ma tarto waxa wax tara quality wax leeyahay waxa wax tara quality war aqoonyahan miyaa in ku yar war ma dad wax dawlad ka soo shaqeeyaan ku yar war ma saraakiil ciidan baa in ku yar war ma leedihiin gole hawiye oo deegaanada hawiye iyo danta hawiye ka hadla ma leedihiin Somaliland waa leedahay Puntland waa leedahay dadaan siyaasiyiin ahayn damac siyaasadeed ku jirin xil doonaynin laakiin doonaya danaha dadkooda iyo danaha deegaankooda ka shaqeynaya ayaa jooga oo dhahaya first Somaliland first Puntland first Jubbaland ayaa jooga our first Galmudug our first maxaa la yiraahdaa hadii la ku runyahay Hirshabelle our first gobolka Banaadir our first maxaa la yiraahdaa ishaq koonfur galbeed
ma aqoon-yahanaan ku yar dadka Soomaali waa aqoonta badan oo hay'adaha adduunka la shaqeeya waa hawiye aawo maxaad u keeni weysay ya maxaad u keeni weysay maxaa adinka isku keentay cali mahdi baa cadiid lugaha ku dhigay cadiid baa cali mahdi lugaha ku dhigay cabdi qaasim baa la soo doontay asagoo faraha ku taagan buu yimid warlooree la hadli maayo iyo dagaal oogayaal warlooladii dagaal oogayaashu inka arqabe dalka ayaga haysta haddaad la hadleen xoog baad ku maquulinaysaa warlooladan u yeer warkan wasiir qaado war adigu taliyaha ciidanka qaado war adigu ambassador qaado kii wax qore wax yaqaan war adiga haddii ilaahay ku reeyay gudoomiyaha gobolka qaado war dawlad aan dhisan adinku aad ka talisaan xaafad baad ka talinaysaan aad magaalo ka taliyo dal ka taliyo oo maxaa la yiraahdaa qaran iyo nation u taliya 5 sano asoo faraha foodada ku taagan baa Nairobi looga yeeray Cabdullaahi Yuusuf faraha ka saar ya cali mahdi gobolka banaadir uma dhisin maxaa la yiraahdaa ishig sitig aan sila maxaa la golo deegaan uma sameyn oo cabdi qaasim uma sameyn oo sheekh shariif uma sameyn oo xasan sheekh uma sameyn hadda waxa ku leeyahay ariya matalaada xamar aaw war gurigiisa buu leeyahay aaw ariya matalaada xamar nin rabo inuu kugu dul noolaado oo ku cuno oo dalkiisa kugu dhisto oo hargeysa kugu dhisto oo burca kugu dhisto oo goro kugu dhisto oo haddii ilaahay kuna boosaas kugu dhisto oo kugu dhisto maxaa la yiraahdaa ishig garo awdal kugu dhistiyo maxaa la yiraahdaa boorame ayaad leedahay aniga maamul ii samee adiga kaa xirooba war aqligaas xagee ka keenteen war waalidaas xagee ka keenteen war miyayna fikireen professoriin aan nahay siyaasiyiin aan nahay wasiirre ahaan jirin xildhibaanana maxay tahay waxaas ma ciyaaraysaan wax mise wax runa oo rasmiya ayaa idinka go'an oo idinka jira sidaan ma idinka daacadba mise dadkaad macnaha isha waa iska show off baa iska rabtiin iyo in la yiraahdo musharax hebel iyo musharax hebel aawo midowga musharaxiin aawo midow aawo badbaado qaran golihii badbaado qaran aawo cabdi xaashi ma haysaan deni iyo maxaa la yiraahdaa ma haysaan iyo xamdoobe adinka ma haysataan ya xasan sheekh iyo sheekh shariif gooniyo isku buuseen cusub la qolo kale madaxa la galay cabdiraxmaan cabdishakuur kaligiis uu kaligi duul buu noqday cabdikariin xuseen guuleed iyo maxaa la yiraahdaa ishaq cabdikariin xuseen guuleed waxa lagu xamanayaa inuu Fahad Yaasin iyo farmaajo la shaqeysanayo qayra waa double joker marna xagga u socda marna intuu u socda 99% waxaan aaminsanahay in asaga iyo farmaajo iskala qaybiyeen oo qorshaha cusub ee hadda soo socda ee qorshihii Putin la yiraahdo ya in maxaa la yiraahdaa ishaq xasan qayre iyo farmaajo iyo Fahad ay isla shaqeynayaan oo qoliyahan lagu dhex jiro oo wixii haddii la kuna sirtooda haween walba la gudbinayo ayay u egtaa sabab xasan cali qayre sanad iyo bar ka badan buusan ahayn prime minister weligiis asagoo hadlaa shir jiraa'id qabtay oo wixii dhacay iyo waxa haddii la ku damacsan yahay iyo ka hadlahay ma aragteen asagoo dowladda mucaaradahay ma aragteen asagoo haddii la kuuray qaladaadka dhacay sheegahay ma aragteen ciidamadan dadkii qaaday ayuu ka mid yahay waa dambiilayaasha waaweyn buu ku jiraa farmaajo iyo asaga iyo Fahad sababta asaga wasiirka koowaad ahaa war hawiyo ma isku ciyaarayna war ma ciyaar baa wadin mase waa riyonaysin ma riyonaysin mase ciyaar baa wadin waxa aad ka hadlaysiin iyo rag waxa ay ka hadlayaan maba islaam inta aad taakaysan talaabsanaysaan iyo inta la idin jiro maba islaam ya nin waran lala kor taagan yahay xabad lala kor taagan yahay oo hurdo ayaa tii oo raba inuu oo sariir firaashanayo raba inuu seexdo sariir buu inta firaashanayo maxaa la yiraahdaa ninkii dilana darshad abaabku u taagan yahay war ciyaarta ma ka deysaan dadka war qorshe ma haysaane ama isdhiibo dalku nabad iyo ha noqdo ha leeyahay xukumo ogolaada haddii kale challenge gareeya rag ka aqoon badnideen ka tiro badnideen ka ciidan badnideen ka dhaqaale badnideen maxaad isku aamini la-adin hadduu cabdiraxmaan cabdishakuur uu noqdo maxaa la yiraahdaa madaxweyne maxaa xasan sheekh haddii la ku reeyay ka ba'ay hadduu sheekh shariif noqdo madaxweyne maxaa cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan sheekh ka ba'ay hadduu xasan sheekh madaxweyne noqdo maxaa cabdikariin xuseen guuleed khayra ka ba'ay ya waxa la nin wax hadal garan waaye af ka soo baxay mid uur ku jirana ma garto waxa weeyaan sidaan ku socotaan waa dib u dhac weeye deegaamaday dib u dhac ku tahay haddii ilaahay ku runayaa siyaasadda gobolkay dib u dhac ku tahay dhaqaalaha iyo horumarinta dib u dhac ku tahay deegaankay dib u dhac ku tahay dadkana waad loogeysaan waad nasiraysaan wax aad u haysaanna ma lahan ka wareega dad haddii ilaahay ku runaya firfircoon
oo raggaan la xisaabtamay lama weynayo ya waxaas wax macquul ma aha waa garateen sooma maanta in deni uu isoo sharaxo oo uu haddii ilaahay ku runaya yidhahdo farmaajo war ii bannee markayga uu yidhahdo aan meelaysane ya 4 sanana laydin maaweelinahay oo laydin wareershay oo 100 jeer aan idiin sheegay war deni iyo farmaajo iyo axmed madoobe war isma dagaalsana war waxaan adinkaa laydinku wareerinaya war midnimadiina lagu kala jebinaya war sirtiina lagu ogaanaya war xogtiina lagu ogaanaya war ciidankiina lagu ogaanaya war abaabulkiina lagu ogaanaya war maxaa idin dhex dhigay war farmaajo haddaad la xisaabtamaysana adinku hawiyaa la xisaabtama nin in adeerkiis bay uga dacwoonaya cabdi qaydud baa ninkii dhahay prime ministerka nooga soo saar war prime ministerka ma farmaajo ale waa constitutional position wey waddanku waa power sharing waa 4.5 war ninkaana u rabnaa in gumeediyo ninka iyaga nooga dhig ninkaa nooga dhig maxaa adiga ma adaa la kursiga maya see u dooran kartaa adiga ninka aad dooranaysid waa in anaga nagala tashataa oo aan anagu ku nidhahnaa okay wey haddaan ku nidhaahno no waa no maxaa yeelay is our position anagu nagu matalahayaa siyaasadda qaranka soomaalida u shaqaynaya waa garta somaa nin aan anaga nagu tumayso oo kal maxaa la yidhahdaa haddii ilaahay ku roonya ah ya oo kashu badarka mooyaha ku jiray tuntaa kashi anaga aan nagu tumayso noo keensamaysa kal aan anagu badarka ku tumayna ayaan rabnaa oo anaga aan haysano soomada garan dowladda system bay ku shaqaysaa nidaam bay ku shaqaysaa siyaasad cad oo politician ay ku shaqaysaa shakhsi rabitaankiis kuma shaqayso shakhsi rabitaankiisna waa midka maanta halkaana dhiga wey waa midka maanta dowlad la-aanta adduunka markay horumar gaareen oo ay gaareen maxaa la yidhaha technology gaareen oo adduunyadu isku furanto dhaqaale la samaystay 30 sano dhaqaalaha la samaysanayo ilbaxnimadu oo la isdhexgalayo oo adduunku isku furmay oo technology-ga iyo internetka isdhexgalay waan ka dhacsanayn anagu maxaa yeelay dowladba maana lahayn dadka iyagu farxad bay ahaayeen xeryo qaxooti bay ku jireen dunidaasaa lagu kala haysanaya maalinba mid laga qaadanaya ilmaha maalin mid lagu dilahay maalin mid lagu xirahay maalin mid lagu dhacahay ummadii oo dhan waxay noqotay hal maxaa la yidhahdaa haddii ay ku rasheeyeen weer ari dhexgale bay noqotay dowladnimadii iyo systemkii adduunka horumaraya waa ka dhacsan maanta markii la kakabahayay oo dib loogu soo noqonayay ayaa waxaad hadda ka shaqaynaysaan in haddana dib 91 loogu laabto 91 loogu laabto dowlad aan hawiya dhisin dowlad aan hawiya si daacad ula shaqayn dowlad aan dhulka hawiya ka hirgelin Soomaali yeelan mayso waxba yaan lagu sheegin howhaa cidlaa iyo been iyo maxaa la yidhahdaa anagaa Puntland anagaa Jubbaland anagaa Somaliland waxaas yaan lagu akhrin hadday Somaliland dowlad noqonayso meesheeda joogtaa 30 sano ay xorriyad sheeganayso Puntland hadday dowlad noqonayso 30 sano ku dhawaad bay ayaguna haddii ilaahay ku runaya maamul gooni u istaaganahay Soomaali fahmin Jubbaland waa timid Axmedoobe hadda iskaba haysto waa iyada kala fadhida meesha ceelalyada ceelka loo soo shubanayo oo biyaha ay ka imaanahay biyaha meesha ceelka waxay ka yimaad meel yara il ayay ka soo burqadaan wabiyada aragtay il bay ka soo burqadaan il yar oo biyaha ayay ka yimaadaan ishu waa magaalada Muqdisho iyo dhulka Hawiye wey war haddiina hagaagin Soomaaliya xataa Soomaaliya hagaagin bal wax kale iska daay xataa Soomaaliya hagaagin war is hagaajiya oo dadkiina iyo dalkiina hagaajiya ka bacdina dadka Soomaaliyeed hagaajiya maxaa ariyaa ninkan dowladda ila leeyahay ku leeyahay war ninkan dowladdu kula leeyahay waa tahay dowladda hadduu kula leeyahay ma wax ku soo darsado ma ciidan ku soo darsado muu dhaqaale ku soo darsado muu dhalinyaro u dhimato shabaab ka difaacdo ku soo darsado haddana sidaas tahay asagaa kaaga sad badan asagaa kaaga haddii ilaahay ku runyahay dhaqaale badan isagaa shaqaalaha kaaga badan waxbarasho haddii la helo inta ugu badan asaga qaata oo dhaqaalaha haddii la helo inta ugu badan asaga qaata hal xildhibaan oo dad dhahaya intaasoo xildhibaan dadkaasaan haddii la sponsorada dowladda hesho xataa hawiye waa ka qadsanya hawiye xataa waa ka qadsanya oo sanad walba intaasoo dal ayaa Soomaaliya sponsorship siisa maxaa la yidhahdaa waxbarasho siisa hadday ciidan tahay hadday tababar tahay hadday technician tahay hadday caafimaad wax kastay tahay waa ka qasantihiin waxa ka tihiin male shaqaalaha markii la yidhahdo
bal hadda magaalada muqdisho shaqaalaha Soomaaliya fiir gebigooda 4,000 ma dhama waa imisa 4.5 baa lagu qaybsaday see lagu qaybsanaa 4.5 anu ma garow waan ka shaqeeyaa mise Hargeysa ka shaqeeyaa see lagu qaybsanaa 4.5 ya waa qalad waxa Soomaali diid bas ma ahan Soomaali diid meey war Soomaali waa Soomaali dawladda Soomaali baa leh dawladda haddaan u dhibanayn oo dhaqaale u bixinayn oo mushaar bixinayn oo cashuur aad bixinayn sidee shaqaale aniga igu soo diri kartaa adigu badakad baa leedahay airport baa leedahay cashuur baa qaadaa maana kula cuna see kayga ila cunaysa waxbaad igu darsatay dhaqaale igu darsatay ciidan baa igu darsatay maxaa aniga ii keensatay nin kaligiis boorso wata ii keensatay Soomaa okay xildhibaanadaadii la baxa cashuurta keen khayraadka inta hesha keen hay'adaha ka qaraabanaya meeshaan rabaa u qaraab tagaya adigana waa kugu qabsanaya waxaas intaas sanaan ka hadlaynay la iskala soo tagi maanta naftii noolayd baa la isku leeyahay naftii noolayd ayaa fakan la naftii noolayd baa hadda fakan la ninkii wuxuu yiri mayd maxaa u dambeeyay kaala siisii dadka hawiye ee maanta nool soo xasan sheekh iyo maxaa la yiraahdaa sheekh shariif cali mahdi waa dhintay cabdiqaasin waa maqan yahay cali mahdi jidka loo galay karba kan baa meesha mari misaali sheekh shariif iyo xasan sheekh ayo diyaarsan baa hawada lagu celi airport ka dhoof miisaan baa guryahooda lagu weeraray hoteeladooda lagu weeraray shalay daraad baa u dambeysay xasan sheekh la weeraray cabdiraxmaan cabdishakuur baa la weeraray cabdi qaybdiid baa la weeraray inta la dilay la ceejiyay godadka lagu guray haweenkii la laay iska daa muqdisho anaga markaan joognay sideetamaadkii habeen kasta rag baa ku qornaa in intaasoo qof oo hawiye isaaqa la dilo in la dilo inta la soo aruursho oo xabsiga la geeyo oo la jir dilo in ninkii nin yaqaanaana laga gato oo la yiraahdo wariya maanta meeqa dibi baa kugu gadantay biibitooyinka la soo fariisto meeqa dibi ayaad gadatay oo ku iibsantay meeqa qof baa hawiyaha soo qabsatay oo lacag ka gadatay ka siisatay dekada ayagoo cashuurta bixiyay baa xoolahoodu sanado iyo bilo ku jireen maalin kastana dekada markay kugu jirto lacag baa kugu socotay ilaa marka dambe waxa aad keensatay iyo lacagta lagu leeyahay badato oo sidaas uga harto war hawiyow war goorma wax baranaysaa war goormaad wax fahmaysaa war goormaad taariikhdu waa waxbaa laga qaataa taariikhdu cidna ma dulmiso ee dadka taariikhda dulmiya war aniga dhabka hadal baa la yidhaha haddaada taariikhda runtan ka hadla war runta miyayna ka hadli karin wax alla wixii dalka Soomaaliya ka dhacay dambi hawiya loo saariyay war hawiya muxuu dambi geystay asagoo lo'diisii geelisii argis ka dhaqanaa inta loo tagay baa lagu shabaxay xabiis ilaayo gabdhiisa la kufsaday oo la xirxirayo siyaasigiisa la xirayo askartiisa la casiliyo xuquuq iyo xaqiiq loo diido la yiri haddii la kuran yahay arrest taa guriga kama bixi kartid oo xirada kama bixi kartid oo saas ma yeeli kartid la yiri hawiye haddii ilaahay kuran yahay muxuu dhibay ciidanka ayaga ugu badnaayo dagaalka difaacay cashuurta ugu badan ayaga bixinay shaqaalaha ugu badan dalka ayaga ahayn iska wax u qabso ku wada dhisay maxay dadkalabsadeen inta lagu kibir dhaqlay oo la laayay oo la dilay baa la yiri dalkii waxa baabasha hawiye markaas hawiye aqbalan la yiraahdaan hey 91dii loo naqaahu leey midka uu aqlay baa 91dii waa mar ay dalka iyo dadkuba baabay oo waxba kaar 91dii waa markii maxamed siyaad bar loogu galaa soo baasada ku cunay fil Soomaaliya dalka intii taariikh la soo maray 21 Oktoobar 1969 ilaa iyo 91 meeqa u dambeysay 21 sano dalkan aaway wixii dambi ka dhacay dambigii ka dhacay aaway dadkii la laayay aaway guryihii la gubay aaway ceelashii iyo barkadii la sumeeyay aaway gabdhihii la kufsaday aaway askartii la laayay aaway dadkii inta la wado la xasuuqo jasiiriya la geyn jiray maxaa la yiraahdaa hiil weyn aaway aaway bangiyada lacagtii taalay oo dadku lahaa aaway maxay hawiye dhaceen dhul la biliraqaystay oo bangigii furno haawanaya oo saas leh
oo bangiga ganacsiga lacag adag oolin oo shilin maca Soomaaliya aysan oolin oo haddii ilaahay ku run yahay lacag Soomaali shilin konton shilin wax ka weyn aysan oolin oo kontonka shilin xataa inta la daadiyey waxa inta cusbeed la qaatay oo albaabadu furan yihiin oo wasaaradihii eber yihiin oo hantidii qaranka eber tahay oo dahabkii yaalla dalka eber yahay oo lacagtii doolarka ahayd eber tahay ayaa la yidhi hawiya dalka maxaa la yidhahdaa haddii ilaahay ku run yahay bilal qaystay hawiyi guri haddii ilaahay ku run yahay hadday ugu badato kursi yaallo u yimid muxuu bilal qaystay aawa qaranka hantidii qaranka aawa lacagtiisa adkayd aawa kaydkiisa dahabka aawa hubkiisii aawa maxaa la yidhahdaa taariikhdiisa aawa taariikhdii dalka aawa faylkii wasaaradaha aawa arkiifkii maxaa la yidhahdaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda aawa booliiskii dambi baaristii aawa maxaa la yidhahdaa isheg hay-adihii sirdoonka arkiifyada qoreen waxiyo dhan waa la baabaashay si aan dib la iskugu soo raacay waa la qaatay waa la gubay hawiya badka baasha lagu leeyay war USC jabhadii ugu dambeysay oo samaysantay ahayde SNM baa ka horreysay oo SSDF baa ka horreysay oo SDF baa SDF baa dhici waa hore SSDF ka bacdi baa la baxay ayaa ka horreysay oo SPM baa ka horreysay oo maxaa la yidhahdaa isheg SDM iyo SPM iyo USC iyo SSDF iyo SNM intaasba ma USC keliya dambi ka gashay ya cid dhahaysa war annaga dembiga aan galna maxay tahay aawa dembigii ay geysteen dhagabacayr aawa haddii ilaahay ku run gacmo goy dembigu geystay aawa gaane dadku xasuuqay aawa moorgan dadku xasuuqay aawa cabdicaluuq dadku xasuuqay ya aawa ina dafla dadku haddii ilaahay ku run xaniyaha uga bixin jiray maxaa la yidhahdaa isheg godka jilcow ya waxaan maqlahay maalin ninka la yidhahdo isheg dabcasiro hadlaya dhahaya adeerkay xirsi carabey ayay xamar ku dileen adeerka xirsi carabey muxuu qaban jiray soo ninka dadka inta laga soo qabtay galgaduud iyo hiiraan iyo u qaybsanaa maahan wiilasha xaniyaha ka siibi jiray soo maaha ninka dilay xabadda ku dhuftay labada xaniyood buu ka baxshay gacantiisa uga baxshay madiina markuu ku dilaayay wiilka uu dilay cayr isha lahaa xaniyaha aan lahayn asagoo nool xaniyaha uu jaray 150 wiil ku dhawaad ayaga inta la soo qabtay uu asagu gacantiisa xaniyaha uga siibi jiray ninkii uu xaniye bixiyay baa dilay xirsi carabi haddii ilaahay ku reeyay ma asagoo xaaji iyo guriis jooga la dilay imise qof buu dilay wixii uu geystay dambi arki maayo yaa ka horreeyay kuwa ayagoo indhala loogu tagay xabsiyada oo 20 sano maxaa la yidhahdaa 15 sano ku dhawaad xirnaa oo aan maxkamad marin oo aan cadaalad helin war waxaasoo dhan in laga xisaabtamo u baahan Soomaalidu waxa ay u heshiin laadahay oo ay dawlad u noqon laadahay runta ayay ka warwareegaan war hawiyo run u wada hadla maxaa naga qaldan dhaha haddii kale weligii dad noqomaysaan war maxaa naga qaldan war maxaa isku qabsan la'nahay war maxaa isku aamini la'nahay dhaha sababta runtiina ka hadla runta ka hadla maxaa runta inay ka hadashaan idintiidi ya isaaq arkiif bay u samaysteen maalin wiilkii laga xigtay waa u qoran tahay idaacadaha ka sheegaan way arkiif gareeyaan Puntland juxa u afgaray wasiirkii arrimaha gudaha ee juxa ayaa u arkiif gareeyay oo maalinba nin wareysanayo asagoo heer wasiir qaran noqday Cabdiraxmaan Odowaana waxa lagu haystay war aniga Saleymaal baana oo qabiilka Saleymaal Ilaahay baa iga dhigay waa see u dhihi kartaa adoo wasiir soo noqday adoo xildhibaan juxa miis xildhibaan miis wasiir hay ya kuwa hargeysa ku kaydinaya arkiifyada ambassadorad miyaysan ahaan jirin wasiiradiisa soo ahaan jirin wax dambi u raacay ma aragteen ya Cabdiraxmaan Tuur ambassador baa Silaanya waxa wasiirka ganacsiga ahaan jiray intaasoo wasiir soo noqday ninkii adiilay ku ka horreeyay oo ina ka ahayn sirdoonku u haystay qayb dhan buu haystay kulligood waxa weeyaan ilaa ay had musabix pilot baa nin aan xil dawlad soo qaban miyaa jira wax dambi u haysta ma aragteen ya maxaa ka dhigay hawiye dambi because waxa la arkay inaadan hadlayn taariikhdaada sheegayn dad dambi laga galay aad sheegayn adiguna aad dambigii dusha saaratay ya waayo waxa la soo maray baadan ogeyn ariyaa siyaad barnaa cayrina taariikh ka dhigata siyaad barnaa cayrina taariikhda siyaad barnaa cayrina taariikh miya maxaad u cayrisay dad cayrisay madqa qofka jawaabi kara waa u cayrisay
dadkii cayriyey ee la dagaalay maxaa ku qasbay marna ma weydiisay ma tiri war wiilasha halkaa ka yimid oo ilkaha gaduudin oo haddii la kura xaggaa naga soo galayo maxaa idinku qasbay inaad qoriga qaadataan weligaa ma weydiisay nin siyaasi ama aqoon-yahan oo arkiif ka samaynaya oo aruurinaya maaragtay oo dhahaya war weligaa war maxaa kugu qasbay adoo geel raacda oo xoolahaaga haysto oo nabad ku nool inaad inta qori qaadatid aad dowladdaada la dagaalantay maxaa kugu qasbay ma adaa dowladda xabadda ku bilaabay mise ayadaa kugu bilowday ma adaa ku bilaabay mise ayadaa kugu bilowday nin dhahaya male ya ununku dembigiyaan qaadano iyo si haddaana raalli soomaaliha naga ahaato maxaa soomaali ku raali gelinaysaa soomaali adaa lagaa raba inay ku raali gelistay ayadaa ku dishay oo ku duluntay oo ku baabi'isay adigoo maxaa la yidhahdaa xorriyaddii usoo dagaalamay adigoo si dimuqraadiya dalka ku wareejiyey adigoo ciidanka ugu dhisay soomaaliya oo jeneraal daawud leh oo cabdullaahi ciise leh oo haddii ilaahay kuu ron yahay iisheeg leh aadan cadda leh ilaahay wada naxariiste oo gabayro leh oo kulligiin taariikhdiina la wada yaqaan oo maxaa la yidhahdaa cali jimcaale leh oo xaaji faarax leh ya baa inta wiil xun oo geel ka yimid oo reebaadiya intu ku leeyahay weligay baan ku xukumi jiray maxaa xukumi jiray maxaad xukumi jirtay dadkii calanka soomaaliya geeyey un-ka u macnaynayo dhahaya bishaan iyo xidigtan iyo buluugan waxaa laga wadaa sidaas iyo sidaas xaggee jirta markaas xaggee baa haddaad xukumi jirtay weeyo war soomaali waa la wada yahay laakiin dad aan xisaabtamin oon runta isku sheegin oo aan haddii ilaahay ku ran si saxa u xisaabtamin dowlad ma noqdaan dalkan Sweden aan joogno way isleen jireen yota iyo waxa la yidhahdaa Svea ay isku leen jireen Sverige waa Svea iyo yote waa qabiil laba qabiil oo ugu waaweyn waa laba dhul oo ugu waaweyn dad ugu waaweyn oo la isku daray baa la yidhahdaa Sverige labadooda la isku dara magacii dalka loo baxshay markay heshiinayaan taariikhda waxaa ku qoran in qofka hadduu gacanta kuusoo taago ku salaamo haddaad ka diiddo ay dembi tahay hatir dhow waa la iska daaya lama tirtirin laakiin waa la fududay sharciga haddaad tiraa qofka waxaa dhigi karta haddaa muslimta aniga I'm sorry ma ku salaamayo iga raalli noqo si xushmad le waa inaad tirahdaa dad badan oo soomaaliyeed oo maxaa la yidhahdaa qaarkood lagu ganaxay baan arag oo dhibaatooyin badan kala kulmay intay gabadhi sacan usoo taagtay nin Soomaali yiri maya sorry hataa sorry ma dhihin gacanta ka ceshay ama gabar uu nin usoo taagay oo ka diid oo la yiri waxa tahay hadii la kure dambi qodob baa jibis Sweden u yaala sharciga Sweden lagu soo baray because sharciga lama baabin laakiin waa la fududey waad ogtay Rwanda wixii ka dhacay waad ogtay wixii South Africa ka dhacay ummaddu way wada hadashaa hawaantii dadka ahaaba wada hadlaya dhahaya aniga dhibkaas aad igu samaysay maxaad igu samaysay why maxaa ku diiday adiga inaad tiraahdo dawladda Maxamed Saad Barre aniga geelaygii bay dhacday gabdhahaygii bay kufsatay wiilashayadii bay dishay maxay ceelashii bay naga duugtay sun bay noogu shubtay haddii 70 oday ayaa 1989 oo habar gidir oo sacadaha docol lagu laayo gaalkacay u jira 15 kilomitir 70 oday ayaa hal maalin la dilay wax taariikh oo ka hadlaya maaragtay ya waliba ayagoo guryahoodii oo furan iyo ganacsigooda oo furan magaalada gaalkacay inta ka qaxay carareen oo halkaas naftooda ay baanta laga daba tagay baa tuutihii dowladda cagta lagu mariyay 70 oday wiilashoodii baa jooga hadda wax ka hadlahayo dhahaya war anaga dhibkaas aan loo geysay maaragtay hawiye ma maqlay ma maqasheen kuwii loo geysay oo saacadka dhibaatada hawiye ma ka hadlaa ya jirtaan waa ka hadlaa burtinle iyo maxaa la yiraahdaa ishag iyo bur saalax iyo meesha la yiraahdo abaarey iyo buqa iyo bacaadweyn iyo maxaa la yiraahdaa balle busle iyo markii ceelasha inta barkadaha ceelasha sunta lagu shubaayay gabdhaha laga kufsanayay waa ka hadlaa arkiif dadka joogay baa ka hadlaa gudoomiyaha gobolka mudug baa ka mid ah ninkii ka hadlayay ee dhinaca Puntland oo dhahanaa taagnaa anigaan kula hadlayaa joogay koob iyo 82 ayadoo haddii ilaahay ku ron yahay ishag yaa ma jirtaan arki la yiraahdo oo ilaalka si sacad iyo wakri ay sheegtaan haddii ilaahay ku ron yahay sheegtaan qaarkood anaga taagnayn oo gabdhihii iyo reerihii kaliya islaamiga ku soo hareen oo ragga dhan ka wada carareen ma maqasheen ma ka hadasheen ya
dad nool in ceela lagu guray oo barkada lagu guray oo ayagoo nool ma ka maqasheen ma ka aragteen maya Soomaali fahmi dad dhan inta lagu soo duulay baabayaal inta la mariyay feera qumuux in loo baxsho ma ka war haysaan ya dad inta la soo laayay dugsiley konton dugsiley inta la soo laayay in inta laga farxasho dhiigooda la yiraahdo waa din doofaar laayay ninka dadkan laayay ma maqasheen nin tuuto wato caalamka halka u dhagan yahay oo sameeyay maya dambiilayaal baatiin because Maxamed Siyaad Barre oo daalim hadridii kuwii la shaqaysanayay ee uu koriyay ee daalimka ahaa ayaa idinku shabaday inaad dambiilayaal tihiin dambi waxa la yiraahdaa Carabi intay ku naftay nabiga kaaga hormartaa adinkuna afkaad gashateen because waxa taariikhdii nimeena xasuus bayna lahayn xasuus iyo maskax bayna lahayn maanta haddaad xisaabtamaysa dhigi kartaan waxaasna loo geedin karo la dilaka leedama imaadeen inta leedin xukumo oo leedin dilo oo wiilashiina lagu duugo maxaa la yiraahdaa kabaha lagu duulo ayagoo nool qaarkood oo telefoonadooda dhacayaan ya siyaasiyiinta guryaha loogu galo lama dhahay qaran dumis baa taa waliba lama sii dhahay ciidankaaga shabaab la dirirayo intaas la dagaalamaya lama dhahan haddii ilaahay kuu runaya ishag waa mooryaan waa mooryaan lama dhahan war jirigaan adigu awoodatay xagee kusoo doobartay kulliyadee ka soo baxay jirigaan xataa haddeer dhashay oo weligiisba dowlad xataa arkin ya xagee kusoo doobartay adiga kulliyadee ka soo baxay shahaadadeesa wataa shahaadadee ayuu wataa ya taariikhda xataa ma taqaanaan taariikhda dadkan ma taqaanaan qofka aad madaxda ka dhiganaysaa ma taqaanaan taliyaha ciidamada lugta bixiso ninkii haddii la kula ceel qolow iyo dadku kusoo laayay tuulooyin kusoo gubama oo abgaalna ka dhigay soo ninkii la yiri Cabdi Bashiir Indabur abwaankii Soomaaliyeed ee heesaha wadaniga u badan alif gacantiisa ku diray afisyoon intuu soo labisay geedkan farisiir madax kaga dhufto basoorada soo asaga ma haddaad taqaanaan taariikhda saas ku qoranta soo martay warninkan dambiilo wey hadduu si dambi gelin waa eedaysan noo noqon maayo taliye martiraade xildhibaanadii wasiirada ma ka hadashay afkaad ka aaminsan farmaajo keensaday farmaajo madalku leeyahay soo kan san farmaajo nin dambiila sidee uu madax uga dhigi karaa war ma ka yeelina dambiilahan anaga nama xukumaayee haddaad doonto nin marixaana kaso laakiin aad dambiilahan keenso maxaad u dhihi weysay dadnimina because maba ogidiin markii hore aad maxaa la dhukanaydeen oo maxaa la yiraahdaa qalbigu idin maqnaa ya markii hore ayaad waxaad ahaydeen dad aan waxna qarin waxna akhrin lana socon waxa loo dilay dowladda xal looga rimaana dowlad kursigo soo ilaasa kursiga Maxamed Siyaad Barre qaranka maxaa Siyaad Barre miyaal sabab ku dilay ku ninka ugu horimaad u dili karaa way dowladda waa wada leenahay dalka waa wada leenahay warwaad qaldan tahay xukunka ka dib ninka yiraahdo waa dilay sharciga siinay farmaajina maanta waa indilaan kaas Siyaad Barre wuxuu geystay baad ilowday kuwii geystay baad la xisaabtamin qaarkiin guryahaad ku haysateen oo adinka haddii la ku hayay oo dambiyadii ka dhaqay oo adinku dambiga dusha iska saaray maxaan maanta la qaylinaysaa marka arbaan maxaa la leeyahay ya haddii sidaan ay sii noqoto oohin kale oo rasmi ah dhilaysa hadda run oo imaysa laakiin run baad ooyin doontaa run ayaad ooyin doontaa waa idinku dheereeyay muuqaalka raalli ahaada taariikh badan qofku markuu wax badan hayo waxa uu sheegayana dadku aysan dhaagaynin wixii uu ka digayna maalin walba ay dhacayaan wax weyn warkiisu ma dhamaanayo laakiin marar badan baynu ismaqli doonaa is arki doonaa haddii ilaahay nafta lagu daayo waa idin salaamayaa waa anigoo Cali Xirsiye oo idin leh nabadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh